السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا حذيفة حكية channel كداوني سارنا وحذيفة فلوجز كسر هذا channel كنا فضلا هذا channel كعصب تاي سبسكرايب نصار فيديو قدرت كشيدنا لايك نصار أدبو ما سنتين صاحبي الفيديو قصيو ضد بدنو قارو فضلا هذا وديت شير نقدر أدبو ما سنتين صاحبي مركل سود هذا ما أنتوا حنو هي برنامج توتالي كدوان برنامج جدي هرودن ما أنتوا حنكالي دونا أون لها اللي دونا نفتي ذا ينفيه نودن إن شاء الله سيدا أن رجينيو barnaamijka maanta waxa weeyaan ma tahay single ma tahay single haddii aad tahay single maanta waxaan ka wada hadli doonaa arrin ku saabsan single-ka amba kelinimada ayaan laba u qaybin doonaa. marka koowaad labada aan u qaybinanaa waxa weeyaan single faraxsan iyo single noloshu ay cidhiidhi ku tahay. single-ka farxadda haysta halka inoo dhig, lama hadlayno qofka maanta farxadda haysta. waxaan rabaa inaan la hadlo amba aan baraarujiyo amba aan dhiirigeliyo qof kasta oo single ah oo single-nimadu cidhiidhi amba keli oo dareemayo macnaha inuu wax ka maqan yahay. nolosha kelinimadu horta inayna qurux badnayn qof walba waa ogyahay, balse waxaan rabaa inaan si khaas diiradda u saarno. kelinimadu waxa ay marka koowaadba ku baraysaa noloshani inay tahay keli. waxaan adduunkan imanaa inagoo keliya, waxaynu ka tegnaa inagoo keliya, balse waxaa jira waqti loogu talagalay haddii ilaahay ku qoro in aad lamaanahaaga iyo noloshaada awlaadaada waqti kula qaadato dunidan dusheeda. saas marka ay tahay waqtiga inta aan la gaadhin nolosha qoyska amba nolosha guurka amba noloshii aad kula midoobi lahayd lamaanahaaga, haddii aad tahay gabadh iyo haddii aad tahay wiilba, inta u dhaxaysa ee dhallinyarnimada la yidhaahdo. dhallinyarnimada ayaabaa waxay usii kala baxaysaa laba. markaan single-ka ka hadalno, single noloshu cidhiidhi ku tahay oo warwar ay ku hayso single-nimadu, iyo single kale oo isagu wax kale intuu dhaafay sariirtu ay leedahay kac oo iga guur amba iga guurso. waxaan doonayaa inaan laba shay inii sheego aniguna. haddii aad tahay single ka warwarsan nolosha, waxaan kuu sheegayaa in aanad warwarkan kaaga dawoobeynin in aad la midowdo qof adiga oo aanan naftaada maareyn karin, adiga oo aanan abuuran karin farxad. kuma siinayo qof kale farxadda aad ka raadinayso qof kale naftaada ka raadi. marka koowaad bar in aad kelinimada maareyn karto. waxaad maareyn awood u yeelan kartaa ood maareyn kartaa naftaada adigoo keliya. marka aad maareyso eed u abuuri karto farxad, eed u abuuri karto wax walba ay u baahan tahay naftu, markaas waxaad raadsan kartaa qofkii aad nolosha kula midoobi lahayd adiga oo faraxsan, adiga oon degdegsanayn, adiga oon warwarsanayn. kuma dhiirigelinayo qof walba inuu single ahaado, balse inta lagu jiro waqtiga sabrka la yidhaahdo ee la gaadhayo xilligii loo baahnaa, ma aha in aad noloshaada ku xidho qof kale noloshaada farxaddaada. farxaddu waa shay aad adigu abuuran karto, kuma xidhno qofkan kale. qof walbaana bal u fiirso, adigaan kula hadlayaa laftirkaaga, u fiirso farxadda. qof walba wuxuu rabaa qof faraxsan. adigu haddii aad warwarsan tahay ugu cidna kuuma baahna. haddii aad naftaada ka farxiso, naftaada u abuurto farxad, waxaad helaysaa qof kale oo faraxsan. farxad ayaa farxad loo geeyaa mooyaane qof murugaysan qof faraxsan ma rabo. si aad u hesho qofkaaga iyo waqtigaaga, inta aad sugayso qofkaaga, isku day in aad farxad ku noolaatid. isku day in aad noloshaada aanad qofkaa uun la sugin farxadda. isku day in aad naftaada adigu maamuli karayso ood farxadda laftirkeeda adigu abuurato. balse qof walba wuxuu maanta ka warwarayaa kelinimada iyo cidhiidhigay ku hayso qofka. ahaw qof ku faraxsan kelinimada ilaa intuu ka helayo qofkiisii. marka aad hesho qofkaaga, waa hubaal waad farxi doontaa. farxaddan adaad haysato unbaad farxad ku biirsanaysaa, farxaddii qoyska. balse farxaddii kelinimada maad helin. waxaan kugula talinayaa, nafteydana aan kula talinayaa, in aan faraxno inta aan ka helayno qofkeennii. farxad fake ah ayaa waxay ka fiican tahay farxadda saxda ah. farxadda saxda ahna waxaa abuuran kara shaqsiga laftirkiisa, amba wiil ha ahaado amba gabadh ha ahaato. farxaddu adiga ayay kaa bilaabantaa, adiga ayayna kugu dhammaataa. noloshaada farxi karayso.
barnaamijka ulama jeedo dhan kale, fadlan yaa lay qalad fahmin. insha allah wixii fikrana waxaad nagula wadaagi doontaan commentska. Instagram-kayguna wuxuu ku qoran yahay xaggan hoose ee description-ka iyo meelahaas oo dhan. haddii aad u baahato inaad fikir amba inaad ila soo xidhiidho u baahan tahay, halkaas aad igala soo xidhiidhi karaysaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.